in la awoodo in la kala saaro calaamadaha uurjiifka caafimaadka qaba iyo kaan caafimaadka qabin. Haddii aan la ilaalin, waxay keeni kartaa dhicin amaba soo daadasho. Dhicisnimadu waa mid ka mid ah cawaaqibta. Assalaamu calaykum. haddii aad ku cusub tahay channelkan Diyaarama Cabdi, fadlan subscribe saar, la socod barnaamijyada wiikiiba hal mar, hooyo iyo dhalaan. maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay sida loo ogaado uurjiifka, caafimaad qabkiisa amaba fayaqabkiisa, si meesha looga saaro khatar kasta oo ku wajahan dhallaanka. Waxaa muhiim ah in la awoodo in la kala saaro calaamadaha uurjiifka caafimaadka qaba iyo kaan caafimaadka qabin. Haddii aan la ilaalin, waxay keeni kartaa dhicin amaba soo daadasho. Dhicisnimadu waa mid ka mid ah cawaaqibta caadiga ah ee ilmahan caafimaadka qabin, taasoo keentay in uurjiifku uu soo daato 20 wiig ka hor. Waalid kastaa wuxuu jecel yahay ama uu rabaa inuu dhalo ilmo caafimaad qaba. Xog la'aan, haddaba taasaa laga yaabaa in xog la'aanta ayaa laga yaabaa inay mararka qaarkood keento soo daadashada amaba lama filaanka ah. Sidaas darteed, fahamka calaamadaha uurjiifka caafimaadkiisu waxay noqonayaan mid muhiim ah. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa calaamadaha lagu garto ilmaha caafimaadka qaba inta lagu jiro marxaladda hore ee uurka. Haddaba, dhaqaaqa. Ilmuhu wuxuu bilaabaa dhaqaaqa bisha 5aad kadib markuu uur. Dhaqaaqa ugu horeeya ee uurjiifka waxaa lagu magacaabaa dhaqaaqis. Qiyaastii bisha 7aad ee uurjiifku wuxuu ka falceliyaa kicinta sida iftiinka, dhawaaqa amaba xanuunka. Sida bisha 7aad, ilmuhu wuxuu bilaabaa inuu bedelo booskiisa bisha 8aad si uu ugu diyaar garoobo inuu u dhaqaaqo isrogo. 9 bilood, dhaqaaqa wuu yaraadaa sababtoo ah booska ayaa yaraada. Waxaasoo dhan waa calaamado muujinaya inuu dhallaanku uurka uu caafimaad qabo. Talabaad, koritaanka caadiga ah. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu cabbiro koritaanka horumarka uurjiifka. Dhakhaatiirtu waxay ku cabbiraan amaba ay ku baadhaan inuu ilmuhu caafimaad qabo iyo koritaankiisa dhallaanka guud ahaan. Uurjiifku wuxuu korayaa ilaa 2 inji bil kasta. Marka bisha 7aad, ilmahaagu waa inuu dhererkiisu yahay 14 inji. 3 bilood ee ugu dambeeya ee bisha 9aad, uurjiifkaaga caafimaad qabkiisa ayaa wuxuu korayaa 700 oo garaam toddobaad kasta. Guud ahaan bisha 9aad, uurjiifku miisaankiisu waa ilaa 3 kiilogaraam, dhererkiisu waa 18 ilaa 20 inji. Dhammaan kuwani waxay muujinayaan amaba ay caddaynayaan inuu uurjiifkani caafimaad qabo. Garaaca wadnaha. Ilmuhu wuxuu bilaabaa inuu garaaco ku dhowaad toddobaadka 5aad uurka. Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaheedu aad bay u fududahay dhammaadka 3 bilood ee hore, iyada oo la marayo la socodka elektarooniga ah ee uurjiifka sida loo xaqiijiyay caafimaadka wadnuhu ilmahaaga. Dhakhaatiirtu waxay laga yaabaa inay sameeyaan baadhitaan aan cadaadis lahayn. Baaritaanadani waxaa la socda garaaca wadnaha ee uurka, wuxuuna bixiyaa aragti ku saabsan khatarta iman karta haddii ay jiraan. Taa beddelkeeda, dhakhaatiirta qaarkood ayaa laga yaabaa inay xisaabiyaan garaaca wadnaha, taasoo ay tahay normalkiisa amaba caadigiisa 110 ilaa 160 garaaca daqiiqad kasta. Booska xilliga foosha. Inta lagu jiro bisha 9aad, dhaqaaqa
cunuga wuu dhamaanayaa amaba wuu yaraadaa dhaqaaqiisu. Ilmaha caafimaadka qaba wuxuu qaataa booskooda si uu u kala wareego uu madaxa u soo foorariyo siduu u yimaado marinka dhalmada ugu soo dhawaado. Koriinka miisaanka iyo caloosha hooyada. Miisaanka kordhaya xilliga uurka waa calaamad hubaal ah muujinaysa in hooyadani uurkeedu caafimaad qabo. Hooyadu waxa wuxuu kordhaa miisaankeedu markay tahay 12 wiig ilaa 15 wiig markay uurkeedu yahay. Waxaad weydiin kartaa dhakhtarka si joogto ah inuu eego miisaankaaga uu ku siiyo warbixin ku saabsan uurkaagu inuu socdo sidii loo baahnaa ee caadiga ahayd ama inay dhibi jirto.